بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed warbaahinta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii wasaaradda warfaafin ahaan maanta waxa farxad noo ah inaanu hor nimaadno golaha shacabka Soomaaliyeed annagoo doonayna in wixii su'aalaha ay qabaan aanu ka jawaabno warbaahinta dawladda iyo qaabkay u shaqeysana wixii warbixin ay uga baahan yihiin ka siino ugu horeyn waxaan jecelahay midna gudoomiye hadaad ii ogolaato inaan baarlamaanka Soomaaliyeed isbaro baarlamaanka Soomaaliyeed ee tiimka ila socda ee warbaahinta dawladda koonahan hadii laga bilaabo aan ka soo kacay Faarax Salaad Daraar waagaasimaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed dhexda waxa ku jira Yaxya Cali Faarax agaasimaha raadiyo Muqdisho koonaha gentlemanka fadhiya Faysal Muuse Maxamed waa tafatiraha warbaahinta qaranka xagga dambena waxa fadhiya Guudle oo ah wariyaha baarlamaanka Soomaaliyeed sidoo kalena waxa shaqeynaya jooga tiimka warbaahin danabeedka warbaahinta dawladda oo uu madax u yahay Axmed Cali Kaahiye marka tiim isu dheeli tiran oo qaybaha warbaahinta dawladda ka socda baanu nahay ugu horeyn mina gudoomiye warqadda la soo gudbiyay waxa ku qoran 3 su'aalood su'aasha koowaad waxa weeye sababta warbaahinta qaranku si siman oo cadaalad ugu baahin weyday doodaha fadhiyada golaha shacabka iyo hadal jeedinta xildhibaanada marka ugu horeysa xildhibaanada waxaan ku ixtiraamaynaa inay fikirkooda ay naga qabi karaan laakiin annagu waxaan u aragnaa sida ay u qoran tahay inaanu si siman oo cadaalad aanu u gudbino ugu horeyn siyaasadda warbaahinta dawladdu waxa weeye in ay laga ogol yahay doodaha kala duwan fikrada kala duwan laga ogol yahay siyaasiyan xildhibaanada golaha shacabka iyo dadka dawladda ku jiraana si siman ay fursad ugu helaan inay shacabka Soomaaliyeed kala hadlaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed marka siyaasaddaasaan ku shaqeynaa haddii shacabka la dhaho golaha shacabka waxaanu for example markii maanta dood dhacdo waxaanu ku darnaa xubno kamid ah warka TV-ga qaranka dabcan meel kasta way leedahay waqti xisaabtan iyo qorshe waa leedahay laakiin intii aanu jiidi karno waa jiidnaa for example warkayagu wuxuu ku dhamaadaa 50 daqiiqo oo runtii aanu jirin television adduunka ah oo 50 daqiiqo war wada kuwa ugu badan 15 daqiiqo weyn si qofku aanu uga daalin warka laakiin maadaama hay'adaha dawladda oo dhan ay doonayaan in laga sii daayo haddii meel ay ka hadlaan 7 qof 7duba rabaan inay TV ka soo muuqdaan waxay nagu khasabtay inaanu dheerayno xilliga warka TV-ga waa arki kartaan habeen kasta waa arki kartaan barnaamij baa ku xiga la dhaho raadraac oo waxyaalihii maalinta dhacay muhiimadii ay lahaayeen lagaga hadlo kaasna qayb kamid aan ku soo qaadanaa wiigiiba mar ayaa waxa jira barnaamijka baarlamaanka oo isagana 1 saac intii aan hore fursad ugu helin iyo kuwii warka ku jiray kuwa kamid ah lagu soo qaado marka runtii platform weyn ayaanu u sameynaa baarlamaanka Soomaaliyeed isku daynaa sidii xalay kaliibiyadii aanu idila soo wadaagnay ku qornaa inay hadlaan waxaan dhihi karaa doodii halkan ka dhacday xildhibaan kasta oo hadlay 3 meelood meel kamid ku jira ama warku ku jira ama raacbu ku jira ama wuxuu ku jira barnaamijka hawlaha baarlamaanka ayuu ku jira marka taladiina waa qaadanaynaa laakiin waxaan u aragnaa inaanu si siman ugu cadaalad falno siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kala fikirka duwan ee golaha shacabka su'aasha labaad waxa weeye fasiraad waafiya in laga bixiyo sababtii ka dambeysay in warbaahinta qaranku Soona Radio Muqdisho iyo Somali National TV soo gudbin waqti ku haboon warbaahinta doodaha hindisa sharciyeedyada doorashooyinka iyo fadhigii isla xisaabtanka ee goluhu yeeshay 8 December 2019 xildhibaano badan oo halkan fadhiya
ayaa markhaati iga habeenkii doodii halkan labadii wasiir ee ugu horreeyey la qabtay inaanu sii daynay saacada waqti fiican siinay oo weliba kala fikir duwanaanshaha si weyn looga arkay ama jawaabaha xildhibaanadu ay weydiinayeen wasiiradii halkan yimid marka taasina tii hore la xidhiidhaa annaku siyaasiyan iyo ficil ahaan midna waa joogaan dadkii technocratka ahaa ee maamulayay anigu inaan qaabka warbaahinta dawladdu u shaqayso siyaasadda ay ku shaqayso horumarinteeda mooye wax luga oo siyaasada oo ku lug leh qofka la sii deynayo qofkaan la sii deynayn ma jiro dawladda wax lug ay ku leedahay ma jiro markaasi waxaanu u qabnaa xor ah oo runtii xildhibaanadu u siman yihiin inaanu u gudbino wixii tala ah iyo wixii tusaale ahna diyaar baanu nahay baarlamaanka Soomaaliya inaan ka qaadano ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa la soo gudbiyo waxa weeye maadaama Soomaaliya National TV lagu tilmaamo in qaranku leeyahay maxay tahay sababta doodaha baarlamaanka iyagoo dhammaystiran loogu baahin waayay sida telefishinada gaarka loo leeyahay waa isla xiriiraan saddex su'aalood saddexdiba waxa weeye si siman loo isticmaalo warbaahinta dawladda ama xildhibaanadu ay warkaan inaan loo sinayn laakiin waxaan cadaynayaa oo haddii guddi la soo diro iyo haddii halka hadda naloo ka baahdo facts actually aanu tusaynaa hadda haddii mudane guddoomiye golahan uu lahaa presentation halkan lagu dhajiyo oo xildhibaanadu fiiriyaan waxaanu tusi lahayn inta xildhibaan ee ku jirta social media iyaga aan tusi lahayn oo boqolaal ah intii doodan ka qayb qaadatay qof kastoo la dhaho kili gareeya waxaanu awoodnaa inaan kili garayno tusno ama magaciisa ku saaj garayno oo soo bixino aanu awoodnaa si siman oo baahsan ayaanu ama barnaamijka ha noqoto baarlamaanka ama ha noqoto raadraac ama warka ha noqoto aanu u sii daynaa wararka baarlamaanka waxaanu u aragnaa golaha ugu weyn ee siyaasadeed ee sida sharcigu yahay laga hago siyaasadda dalka ku fadhiya codka shacabka Soomaaliyeed waxaanu kaloo diyaarnaa aniga iyo tiimka oo aan ugu talagalay inay arkaan konseenka baarlamaanka laga yaabay inaanay hadlin laakiin inay dareenkiina arkaan kuna shaqeeyaan ayaa halkan u fadhiya marka diyaar baanu idin nahay mudanayaal iyo marwooyin xildhibaano inaanu wixii taladiinana qaadano hagaajino sida warbaahinta dawladdu u shaqeyso shacabkana u gaarsiiso information dheelitiran oo fikirka xildhibaanada ku salaysan aad u mahad